saddexdii cashare hore waxaynu ku soo baranay saddexda window ee SPSS-ku uu leeyahay. casharkan waxaynu ku eegaynaa marka SPSS-ku uu resultskaagii kuu soo saaro. hadii jeer waxaa dhici karta in aanad ku qancin sida resultskaagu ay u eegyihiin oo kale. tusaale ahaan graafkani hor yaalla bar chart-kaahi midab badan uu leeyahay in aanan ku qancin. table-kan oo kale frequency table-ka halkan percent baa ku yaala sare, laakiin halkan waxaa ku yaala 43.8. waxaa dhici karta in aan u baahdo tusaale ahaan inaan calaamadii percentiga aan ku daro selkan oo kale. markaa casharkan waxaynu ku eegaynaa bal haddaad doonayso tableskaaga iyo chartskaaga in aad formaat garayso sida aad u samayn karto ayaynu ku eegaynaa. halkan haddaad eegto outline viewerkeenna waxaa ku yaala result isku mid oo aynu dhowr jeer soo saarnay. markaa waxaan rabaa inaan resultskan mid kala soo haro inta kala dhan iska delete gareeyo. si aan intaas oo dhan delete gareeyo qaybta waxaan taabanayaa halkaa ay heading-kooda, kadibna keyboard-kayga ayaan delete taabanayaa. okay, kanna sidaas la mid ah ilaa inta waxaan doonayaa xabadda ugu sareysa qura inaan la soo haro. kanna waxaan doonayaa inaan iska delete gareeyo. logganna iga delete garee, loggan kale iga delete garee, logganna iga delete garee. waxaan la soo haray hal result baan la soo haray. tusaale ahaan waxaan doonayaa fartan table-kayga ku taallo oo kale in aan waaweynayaan doonayaa, ama waxaan dooni karaa inaan data seriska aan wax ka bedelo si aan u formaat gareeyo resultskaygan. simbale waxa aan doonayo inaan formaat gareeyo, waxa aan doonayo waxaan uga jeedaa haddaan tableka doonayo tableka, haddaan chartka doonayo chartka ayaad double click ku samaynaysaa. bal iminka tablekeedna aan double click ku sameeyo, double click baan ku sameeyey, waxaa ii furmay formatting toolbar baa ii furmay. halkan waxyaalo fara badan baan ka samayn karaa oo kala duwan. waa number one, tablekaygii waan ka formaat garayn karaa. headingskii oo kale waan ka bedeli karaa, new headings waan gelin karaa, new titles waan samayn karaa. iminka tusaale ahaan oo kale haddaan doonayo in calaamadii percentiga 43.8 kaaga horeeyo oo kale aan ku daro, halkaa right click baan ku sameynayaa. waxaan ku sameynayaa right click ayaan ku sameynayaa, kadibna waxaan tegayaa halkaa ay ku taalo cell properties. cell propertieskii marka aan tago waxyaalo kala duwan aan ku samayn karaa jirta. tusaale ahaan oo kale haddaan percent doonayay dee number formatkii waa kana percentigaan doonayay ayaan ka dhiganayaa. sidaas halka sare ku taalo ayuu igu muuqanayaa. iminka waa 1 decimal point ama 1 decimal place. inta decimal place aan doonayay inaan ku darsado waxa weeye halkan aan kaga darayaa ama 3 decimal place ama 4 ama 5 ama nothing badee. haddaan doonayo inaan decimal place aan qaadaan aan hor lambar qaato. okay, waxyaalo fara badan waxa weeye u bedeli karaa jirta oo waxa weeye formatskii kala duwan, number u bedelo, date u bedelo, time carrots waxyaalaha waa kaa. halkan waxaa ku yaala font and background ayaa ku yaala. iminka font color-kayga waa kaa. font color-kan ka bedeli karaa. bal iminka horta percentigii aan ku apply gareeyo. markaan apply idhi adigaa arkaya percentigii waa ku apply garaysmay, percentigii ayaa ku apply garaysmay. waxyaalaha kalaan samayn kara waxaa ka mid ah tusaale ahaan alignmentkii oo kale sidaan u align garaynayaa. waxaan ka dhigayaa lefty sidan oo kale, waxaan ka dhigayaa center sidan oo kale. markaan halkaa center idhi daatadii centerkay tegaysaa. waxaan ka dhigayaa right sidan oo kale. vertical alignmentkii ma top baan ka dhigayaa, ma center baan ka dhigayaa, ma bottom baan ka dhigayaa, oo halkan baan ka bedeli karaa. halkan waan ka bedeli karaa oo apply hadda eeg hoosaan yaro dhigo apply marna sare aan u qaado. taasoo kale waan samayn karaa. iminka taasoo kale okay aan iska idhaahdo. kaasi waa markaan bedelayo roogan oo kale. haddaan right click ku sameeyo waxaan taaban karaa halkan markii hore selka qura aan ka doortay table propertieskaan taaban karaa. tableka oo dhan propertieskiisii ayaa ii soo baxay. iminka halkaynu taaganay waa data area. waxaan tegi karaa titleka. titleka markaan tago fartaan waaweyneyn karaa. tusaale ahaan 4 aan ka dhigo, boolna aan ka dhigo. tusaale ahaan alignmentkii inaan sidaan rabo halkaa eeg, halkaa sidaan rabo inaan u align garayn karo alignmentkii farta. waxa weeye haddaan background color aan doonayo inaan u isticmaalo tusaale ahaan titlekaygii halkan waxaan ka dooran karaa. tusaale ahaan datadii baan ka dooran karaa, waa data areadii. what about
haddaan data area doonayna iyaduna backgroundka laga yeelato ka waran halkan aan kaga dari karaa eeg ma arkaysaa row labaliskayga maxaan doonayaa inaan ka dhigo tusaale ahaan eeg waan formaat garan karaa hadhow simply apply baan odhanayaa simply maxaan odhanayaa apply baan odhanayaa waad aragtaa tablekaygii sida uu igu bedelmay borderskii oo kale borderkayga saan doonayaa inaan ka dhigo tablekayga okay linekiisa ka waran haddaan linekan doonayo apply ma arkaysaa line marka sugu mariyey okay haddaan doonayo ka waran red outer framekii red outer frame ma laha laakiin waxaan ka dhigan karaa line madow inuu red outer frameka uu igu sameeyo can you see it lineka uu igu sameeyey iminka marka tablekayga eegto waxa weeye rowskani ma kala qaybsanaa tusaale ahaan rowskan waraabad haddaan doonayo inaan kala qaybiyo kale bal iminka horizontal category borderkaas oo kale aan tago halkan lineka noocaan rabo aan ka dhigto waxaan doonayaa layma kaareynayay maraan apply x uu igu kala qaybiyey what about intaanan ka bixin haddaan doonayo inaan frequency tablekan aan ka sameeyo chart halkan waan kii garayn karaa selected table odhada marka hore tablekaygii waa kaa waxaan odhan karaa markaa ka samee maxay bar chart ka samee bar chart ka samee markaan yidhi waxa dhacay bar chart aada qurux badan buu iiga sameeyey tablekaygii buu iigu rogay uu bar chart iigu rogay waxyaalaha kalaan samayn kara wax ka mid a iminka waxyaalaha kalaan samayn karo waxaa ka mid a tusaale ahaan haddaan garaafkaygan doonayo bar chartkaygan inaan midabada ka bedelo kale ka waran ama accesska aan ka bedelo waxyaalaha right click baan ku samaynayaa bal iminka kaasoo kale markaan kili gareeyo tusaale ahaan waan kala hormarsiin karaa iminka web baa xaggan ugu xiga xaggan waxaa ugu xiga ipad ka waran ipad-ka haddaan doonayo inaan xaggaa ugu xigsiiyo okay apply haddaan ada ka waran max waxa dhacay bal ka waran way isdhaafeen kaas waa categorieskii oo kale fill and borderkan kaale haddaan bar chartkaygan doonayo inaan taa midabkaa okay apply tanna midabkan iga dhig apply tanna midab gaara iga dhig markaan apply idhaahdo fiiri waxaa dhacaya okay chart sizekii oo kale markaad eegto chart sizekeygii haydkeeda intee baan doonayaa hoos u dhig warfigeedana hoos u dhig haddaana doonayo inaad haydka iyo warfiga israacaan dee waxaad ka reebaysaa maintain aspect ratio reebaysaa maxaad bedeli kartaa haydka oo qura isagoo warfigu intiisiiya eeg markaan kili gareeyo maintain aspect ratio warfigii oo ballacii sidan ahaa iyo haydkii sidan ahaa waxa weeye in isku mida ayay isbedelayaan oo proportional waan kala reebi karaa tusaale ahaan waxa weeye kanoo qura ayaan bedeli karaa apply markaan aado fiiri chartkayga intay leekaatay okay waxyaalaha kalaan samayn karo maxaa ka mid ah bar optionska oo kale haddaan doonayo baarkaygan ballaarhkan iyo intan ilaaleegin inaan wax ka bedelo bar optionska markaan tago fiiri waxaan aado waan yaraynayaa baariskayga apply dheh eeg way ii dhuubnaadeen haddaan u baahnay waan ballaarin karaa 100% you see waxyaalahan sameynaya soo markaysa intaan doonaan ka dhiganayaa warabood haddaan doonayo inaan u sameeyo ka waran shading iyo waxyaalahaan u sameeyo kaasoo kale dhimka halkaas saare kaana saare base ay soo kibidalaan fiir markaan apply idhaahdo eeg shade bay yeesheen shade ayay yeesheen 3D baan ka dhigan karaa okay 3D baan ka dhigan karaa sidaan rabo ayaan u bedeli karaa feederka oo kale okay halkaan doonayaan feederkii geysan karaa ma arkaysaa flat baan ka dhigan karaa variableskayga oo kale waxbaan ku dari karaa waxna waan ka dhimi karaa iyaga laftoodan manipulate garayn karaa categoriska markaynu ku noqono haddaan idhaahdo ka waran mid ay ahaan lahayd 2% halkan waxaan leeyahay collapse waa inaad isku laabto aad iga qaraysaa haddii ay 5% ka yartahay ama 1% ka yartahay ama 2% ay ka yartahay waxyaala doonan kartaa halkan oo kale markaynu toolbarkan aynu eegno waxaan samayn karnaa elementska markaan tago inaad show data labels oo halkan value-ga yihiin aan bariska dhexdoodii waxa weeye aan ku muujiyo waxyaalaha kalaan samayn kara waxaa ka mid ah inaan line sidaa uga soo degayo tus muujinaya intay kala dheer yihiin oo kale haddaan u baahdo tusaalahaan inaan ku dari karo ma arkaysaa lineka laftiisa intaad keli garayso ayaad wax ka bedeli kartaa haddaad doonayo midabkiisa inaan bedelo tusaalahaan haddaan doonayo lineka inaan noociisoo kale aan bedelo aan doonayo inaan dashka ka dhigo inta uu leekaanayo tusaalahaan aan sizekiisa laakaysan inta aan midabkiisa ka dhigayo waxyaalaha midabkiisa ka dhigay eeg
laynkayga waan manipulate garayn karaa keligeedaba jaarkaygan waan transpose garayn karaa. Transpose maxaan uga jeednaa halkay sidan ka ahayd ee ay xasare u jeedeen ayaynu u dhigaynaa horizontal baan u dhigaynaa optionskaan tago transport chart markaa fiiri sida ay igu dhigantay halkaas waxa weeye waxyaalo fara badan oo intaa ka baxsan ayay leedahay. waxa weeye adigu ku dhex wareeg waxa weeye mid kasta waxa uu qabanayo soo jaarkaaga wax uga bedelayo waad eegi kartaa. taasina waxa weeye waa sida aynu waxa weeye u format garayn karno resultskeeni aynu format garayn karno inagoo isticmaalayna output viewerka. markaan sidaan rabo aan u ekeysiiyo waxaan doonayaa aan ku darsado waxaan doonayaa aan ka saaro aan shaqadayda ka qabsado simply waxaan samayn karaa inaan kan xidho kan intaan xidho close ilaahdo kana close ilaahdo iyo inaan output viewerka si directiya aan u close gareeyo iyagaas xidhayaan close gareyso. waxaan u soo baxayaa resultskaygii oo u format garaysan sidii aan anigu rabay ayay soo baxayaan.